الرحمن الرحيم. والله وحنا aad uga tacsiinaya dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday walaalkeen maaragtay mahad Cawil Daahir Salaad. Cawil aniga 7 sano oo noloshiisa ayaan aad u wada shaqeynay subax walba idaacadda Horn Africa. runtii annagana lagu sheegay inaan Horn Africa magaceedu u naqan laakiin Cawil dadkii dhisay oo ahaa saxaafadda maanta Soomaaliya ka shaqeynaysa. marka nin macna badan oo ahaa nin dadaal badan oo ahaa nin maaragtay soo fursado badan haysta dalka inuu uga tago haddana joogo ahaa. marka qofba maalintiisa ma dhaafayo laakiin kulli contributionkiisa waa uu sameeyay wixii uu ka bedelay Soomaaliya waa ka bedelay wixii uu qaban lahaa waa qabtay. xaalad dhib badan oo Soomaaliya amni iyo nooc walba u dhib badan ayuu ku guuleystay inuu isbedel ku sameeyo. marka runtii tiiraayo weyn ayay ugu haysaa markaan maqlay geeridiisa. inkastoo ummadda Soomaaliyeed ay dhimanayso maalin walba haddana qofka aad taqaano ama aad sidaas oo kale muddo dheer isla soo shaqayseen isla soo noolaateen isla soo khatar badan isla soo gasheen markaad maqasho subaxdaba lagu soo sheego haddana waa iska tiiraayo maalin walba noo taal. ilaahay waxaan uga baryayaa maaragtay inuu naxariistii iyo jannadii ka waraabiyo reerkii iyo qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyoodana maaragtay inuu samir iimaan ka siiyo annagoo dhan oo Soomaaliya iyo asxaabtiisiina inuu naga wada samirsiiyo. wuxuu ahaa xidig Soomaali ka baxay jannadii firdawsi Allah ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay taalla u samayso. wuxuu ahaa mid aan la hilmaami karin oo bulshada Soomaaliyeed xidigeedii wacyigelin haday tahay hadii ay tahay waxqabadba runtii ma hilmaami karno. inkastoo Soomaali badan oo lamidana ay ka baxda Soomaaliya waxaan leeyahay jannadii firdawsi Allah ka waraabiyo qoyskiisii iyo qaraabadiisina ehelkiisi kulli ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan taasi gaara أنا درايا ولالكي أبهي يلا بعد ولالكي عاول داهر صلاة إلهي وحنو قبريايا إنه تندي سيفر دو ساهد كورابيو أنا بحويها قول المودة لويها walaalkay wuxuu yahaa qof nolosheeda qaali ku ah wax badan nolosheeda ka bedelay saaxiibi ah aan la tashado tala isiya dhalinyaraha waxaan ahaa ka shaqeynaya dawladda Soomaaliyeed waxna qaldaay waxna saxay. Cawil wuxuu ahaa ninka kaliya ee aan la tashan jiray waxa Allah naxariisto walaalkay. waxaa igu yaabka badnaa waxay ahayd markii aan soo qaaday lugtiisii oo aqaano oo lugti Cawil ah in lagu qabsaday oo la yiri ma aha lugti Cawil. wax la yaab leh oo xanuun badan ay yahay xaqiiqatan. walaalkay Cawil إلى وحنا بريايا إنه النبي فرتو سعيد جيه هذا وجد باتي المفتي سيدا فيه ومدي يسوي أذيقه ولا فيه إلى داود ممارن بي لقبن تونا وعدالة هوري من تونان
يعني walaalkay Cawil Daahir Salaad uu ahaa nin qaran uu ahaa nin bulshadiisa u soo qabtay howlaha ugu aadanaa ee waliba saxaafadda dhinac kaste hanuunin dhinac waxbarid dhinac muxuu toosin dhinac yani bulshadeed يعني wuxuu ahaa nin door weyn ka soo qaatay gaar ahaan waliba 30 sano u dambeysay oo dhibaatada iyo masiibooyinka iyo mashaakilka uu ka jiray marka taariikhdiisa inta lagu soo koobi karaayo waxaan rajaynayaa insha Allah taala taariikhdiisa qoran in yani la qori doono insha Allah taala ina soo bixi doonto biidhnaahi taala idoo lagala kaashan doono dabcan inta asxaabta inta isku dhawaynay inta warkii yani xogtiisa runta u haysay بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsi weyn uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto si qaas ahaan waxaan tacsi u dirayaa qoyskii ehladii uu ka baxay walaalkeen Cawil Daahir Salaad wuxuu ahaa qof walaal qaali ah walaal nagu weyn walaal noo dhow ilaahay raxmaanka illa Allah oo naga jeclaadan waxaan ka baryayaa inuu ilaahay jannadiisa firdowsa geliyo marti la jeceliyaa ka dhigo inta qof oo islaam ahayd oo maaragtay la macaamilana waxaan ka codsanayaa inay wada cafiyaan qofkii wanaag ka dhaxeeyo u duceeyo qofkii wax kala dhaxmareen oo qof ganacsi hol ku jiray adduun ka shaqeynayaan asagana iska cafiyo aan u wada duceeyno maanta waxa waaye ilaahayga abuurtaan naga jeclaaday marka waxaan leeyahay insha Allah biidnillah ilaahay marti la jecel Allah ka dhigo ilaahay kuwa doorta Allah ka dhigo annagana ilaahay maaragtay gadaashiisna ma fidneeyo بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون دمان ومد الصوماليات يا أهلك يا قرابتي وكتجي يا أصحابتي ولكن عاول داهر سلام أنا وقوها الله دمان وجانكي هراء قول كتنادر وصاحبك وين لاها عن تعسو درينا دمان دفع عن الصوح حسني أنا ولكن عاول إنه كتجي dhaxalgal xoog leh oo lagu xasuusan doono kaasoo gaarsiisnaa heer qaran ama heer caalami taariikhduna ay sheegi doonto abaalkii uu galay ummadan iyo wixii uu qabtayna taariikhaha dambe loogu dhigi doono carruurta ummadda Soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadiisii firdowso siiyo iyo dambi dhaaf annagana sabir iyo iimaan naga siiyo gadaashiisa una fidnayn waxaan kaliya oo aan ku dari lahaa in walaalkeen Cawil uu xasuusto inuu ahaa qof garashadiisa ay gaarsiisan tahay inuu isku koobneen koox ama group ama deegaan siyaasadeed gaarsiisan heer uu isku wadi karo dadka nooc walba ay yihiin asagoon colaad iyo xasad ama dhibaato ama qaab ay dadku dhibsadaan aan marna uga dhaqmin ilaahayna sabir iyo iimaan naga siiyo dhammaanteen gaar ahaan asxaabtii Universal TV oo uu ahaa halbowle ama laf dhabar ka tagay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليك راجعون waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed intii qaraxa ku dhimatay intii ku dhaawacantayna Ilaahay caafiyo geeri xanuun badan ay ahayd geeri macnaha laga naxo oo aad iyo aad u xanuun badan ay ahayd dadka ku geeriyooday dadaan waxba galabsanin dadaan waxba dhimin ay ahayd maalin walbo in dadkeena ummadeena Soomaalida lagu laayo ehelka qaraabada waa wax aad iyo aad u foolxun dadaan waxba galabsanin dadaan waxba dhimin in dhibaato loo geysto waxaan tacsi u dirayaa dhammaan bahda telefishinka faamilka Cawil Daahir Salaad oo ahaa walaal igu qaali ah ahayna hadii ugu dhow macnaha markii la dhawaansho dadkii iga dhawaa walaalkay ahaa garabkayga ahaa waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay waxaan uga baryayaa dhammaan inta dhimatay janna firdowsa dambi dhaaf inuu uga dhigo waxuma aysan galabsanin gacan ka xaq daran ayaa dishay ilaahay ayaan uga baryaa janno waxaan ka codsanayaa dhammaan inta qaraxa geysata
oo aan ogeyn oo dadka loo soo diraa muslimiinta inay macnaha ay ogaadaan inay dad aan waxba galabsanin ay baabi'inayaan inay sacaado baabi'inaynin dad muslin ay baabi'inayaan xaq darro ku baabi'inayaan. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Zaynab Maxamuud Warsame gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. waxaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiyadeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid walaalkeen saaxiib qaali nagu ahaa macallin wax badan oo nolosha horumarkeeda ee maanta aan tirsanayno noo ahay walaal marxuum Cawil Daahir Salaad. waxaan leenahay adduunka sidii lagugu jeclaa insha Allah aakhirana Allah kuugu jeclaado intii uu ka tagayna samir iyo iimaan dhamaanteen Allah naga wada siiyo qaasatan qoysaskii uu ka baxay hooyo iyo dhammaan caruurtii iyo xaasaskii intii uu ka tagay ummadda Soomaaliyeed si gaar ah bahda ay shaqo wadaagta ahaayeen ee Universal TV waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. geeri xanuun la waaya qofka geerida way kala xanuun badan tahay inkastoo qof kasta Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof kasta waqti uu sameeyay haddana waxay u baahan tahay xanuun waay anaga markaa maqalno wallahi waa isku naxnay xanuun badan inuu sameystay maxaa yeelay qof agteena qaali ku aad mana ku tashanayna hadda geerida adduunyada sida iska dhamaanteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqana waafajiyo walaalkeen ilmihii ehelkii qaraabadii asxaabtii dhammaan iyo intii oo asxaab la ahaa iyo inta taqiinay sabr iimaan Allah ka siiyo anagana Allah naga wada siiyo isbiru la Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa ha loo sabro maxaa yeelay adduunyadana waxay tahay maalin waay wax socdo waay oo mataqaana cawada hadaa dhimanto bari ina gaaris lagu xisaabtamo. magacayga waa Caasho Cumar Geestiir gudoomiyihii hore haweenka qaranka Soomaaliyeed qof muddo ku nool Muqdisho ah waxaan u tacsiyeeyaa walaalkay Cawil Ilaahay naxariistii janno Allah ka waraabiyo wuxuu ahaa halyey qaali nagu ah taariikhda kuma iloobi doonto ma aaminsanay inuu naga dhintay waxaan aaminsanahay inuu naga dhuntay tusaalihiisa iyo wanaagii uu qabtay Soomaaliya runtii waa waxaan ku dayan doonaa mustaqbalka tusaalooyinkiisii filmadiisii ugu dambeeyay wanaagga soo jeclaa dardaarankiisii ayaan weli maskaxdayda ka bixin oo uu leeyahay qof walba Soomaaliya waxay u baahan tahay Soomaaliya oo dhan inay isugu timaado qof walba inay wax ka qabato ay wax ka bedesho dadaalkii badan uu hayay waxaan kamid ahaa dadka Soomaaliya ku soo noqday jeclaa inay wax ka qabtaan haddana u taagan qof xanuunka qaraxa uu leeyahay ogsoonan kamid ahay. إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. يقول الله تعالى في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي سبحانه وتعالى أيامها السنة كان نقصه كل مي waxaan rabnaa inaan halkan uga tacsiyeyno dhammaan shuhadadii walaalahayna ahayd ee ku geeriyootay musiibadii iyo dhagarihii ay soo maleegeen khawaarijta dalka ku soo duushay waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala in allaala intuu ku dhimatay in ilaahay u naxariisto subxaanahu wa tacaala kitaabkoodana midiga uu ka siiyo shuhaday ahaayeene ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in maaragtay ajru shahaada ilaahay uu siiyo intii dhaawacana Allah waxaan uga baryaynaa in alla bogsiyo subxaanahu wa tacaala inta kale oo ummadda Soomaaliyeed ama muslimiinta meel ka sii joogaan in ilaahay ka badbaadiyo musiibadaas oo kale waxaan rabaa guud ahaan ka sokow gaar ahaan inaan halkan uga tacsiyeeyo walaalkeena Cawil Daahir Salaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آدي آد أيام marka hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsiiti raanyal u dirayaa ehelada asxaabta qoyska shacabka Soomaaliyeed ay ka baxeen walaalaheen Maxamed iyo Axmed iyo marxuum walaalkeen Cawil Daahir Salaad iyo dhammaan walaalihii ku geeriyooday qaraxii masiibada ahaa dadkan maaragtay alxanlaawayaasha ay ku xasuuqeen walaalaheen aad iyo aad ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu
jannadii firdaws ka waraabiyo inuu kitaabkooda gacanta midig ka siiyo marti la jecel yahay ilaahay inuu ka dhigo wax kale noo furan ma jiraan aan ka ahayn inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga barino inuu jannadiisii ka waraabiyo waxaa hubaal ah inay ahaayeen dad mujtamaca soomaaliyeed qiimo ku dhex lahaa dad abriye ah oo biribageyda ah oo aan cidna wax ka galabsanin cidna dhibaato ka gelin cidna takana ka gelin oo shaqa maalmoodkoodii u socday mujtamaca soomaaliyeed indho u ahay u adeegayay iyaga oo aan cidna dhibaato u geysanin la dilay oo naftooda la gooyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisii ka waraabiyo ana lilaahi maa akhada walahu maa actaa ehelka iyo asxaabta gaaridan xanuun kale ay ku timid waxaan alla uga baryaynaa inuu sabar iyo maxaan ku yidhahdaa dulqaad iyo allo sii dhawaasi inuu ku irsaaqo بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed cabdi maxamed inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ka tacsiyeynaa dhimashadii ku timid walaalkeyna qaaliga ahaa oo ahaa nin qaran ummadda soomaaliyeed iyo ahalkiisii iyo qaraabadiisii aan uga tacsiyeynaa aniga si toos ah ayay ii taabinaysaa geeriduna waa xaq wuxuu ka mid ahaa cawil saaxiibaday aad iyo aad iigu dhowaay iguna advaas gareeyey ama igu geesinimo geliyey inaan waddanka ku soo noqdo anigoo ka maqnaay 38 sano marka cawil daahir salaad wuxuu ahaa shakhsi walaal ay ah aniga runtii muddo badan si gooni ah oo gaar ah wada shaqeeyey la taliyo ii ahaa walaal oo runtii aan isku dhaweyno ahaa haddadan dadka aan magaalada muqdisho dartooda u imaado ka mid ahaa howlo badana noo wada socday laakiin ilaahay ma qadarin arrimahan mar walba soo laabtaan qof walba oo qiimo leh ayaa maalin walba saan ugu tacsiyeynaa runtii waa xanuun aad iyo aad u weyn ilaahay waxaan ka baryayaa asagaa qafuur raxiim ah inuu ilaahay u naxariisto janno firdowso geeyo ehelka iyo caruurta uu ka geeriyoodana rabbi inuu ilaahay subxaana qaadira samir imaan ka siiyo annagana waa isaga tacsiyeynaynaa samir imaan inuu naga siiyo walaalkay inuu noqdo iyo inta kaloo qaraxaas kula dhimatay